iyo aqoon-yahanada Magan Forum iyo Salam Bank oo sponsor gareeyay dhammaantiin waan salaamayaa waxaan u mahadcelinayaa madashan sharafta leh mawduucan muhiimka ah soo bandhigtay waxaa kaloo u mahadcelinayaa Salam Bank oo ku kaalmeeyay waan mahadcelinayaa intii ka soo xaadirtay iyo intii awraaqda cilmiga ah ka soo jeediyay intabana way mahadsan sida aad ogtihiin mawduucan hadda laga hadlay oo Triple P ga loo yaqaano inaga uu inagu cusub yahay waddankeenu taariikh ahaan marka laga reebo muddadii koobnayd dowladnimadu inagu bilaabatay rayidkii wixii ka dambeeyay oo dalku uu soo koray dhaqaale ahaan nidaamka uu qaatay wuxuu ahaa ama gacanta ku hayay nidaam wax walba dowladdu gacanta ku hayso oo aan private-ku waxba haysan ayuu ahaa halkan ma rabo inaan de kasoo jeedino muxuu ku xumaa iyo muxuu ku fiicnaa taasi waa arrimo jaamacadaha lagu dhigo la qoray wax badan maxaa ku fiican yahay muxuu ku xun yahay idinkaa aad war uga haysaan waxaana rajaynayaa in dee maanta oo dhan maadaama mawduucan la qaada dhigayay in si fiican looga sheekeeyay baan rajaynayaa meesha markaan ka soo baxnay oo aan burburkii baa dhacay burburkii iyo wixii ka dambeeyeyna dadka Soomaaliyeed sharafta leh hadda halkan sawiradooda laynaga tusayay waa dadkii waddanka burburkii kadib dib u kabashada soo bilaabay isu yimid qof walba fildigii uu markaas uu ama waxbaad ka qaban kartaa ama uu horeyba uga shaqayn jiray uu dib u soo bilaabay u soo amaamuday soo bilaabay haday noqoto waxbarashada haday noqoto caafimaadka haday noqoto ganacsiga qaybihiisa kala duwan intaba markaasna maadaama inay dawlad jirin wixii oo dhanba wuxuu noqday private ayuu isu bedelay marka waa darafkii u shisheeyay oo laga soo guuray haddana darafkii u shisheeyay ee kale oo la tegay waaye marka dhibka jiray de wuxuu ahaa waa la shaqaynayay laakiin waxay ahayd maadaama inay dawlad jirin marka aynan xukuumaddii iyo dee nidaam uusan inoo jirin waxaan ku shaqaynaynay ama dadku ay ku shaqaynayeen uun hab isfahma iyo hadba wixii suurtagala ayaa lagu shaqaynayay iyo dhaqamadeenii iyo oo asalku ka yahay inaan inagu istrust garayno oo aan is-aamino intaasunbaa lagu wada shaqaynaya shuruuc iyo wax la raaco iyo system dee maadaama aysan statekiiba ama hay-adihii dowladnimo ayna markaa inoo shaqaynaynin taas ayaa lagu shaqaynayay waa lagu soo caanamaalay meel fiican bay duruufaad adag baa lagaga soo gudbay meel fiicanna waa lasoo gaaray dowladdaa timid dabcan dowladdu markay timid ay dhalatay iyadoo dee xoog leh oo muasasaadkeedii oo awoodeedii leh oo shuruucdeedii leh maysan imanine dee iyada oo tabar daran oo bilow ah oo wax waliba uu bilow yahay bay timid marka muddadii hadda marka 20 sano ahayd ayna soo dhaaftay waxaasaa la isla soo kufkufayay oo dee waa la soo socday mararka qaarkood waxaa imaanaysay dee dowladdii oo aada u hooseysa iyo privatekii oo meel kore jooga oo isu baahan say u wada shaqaynayaan
ayaa mararka qaarkood waxay noqonaysay in aysan compatible isku ahayn. waa la soo socday marka waxaad moodaa in marka marxaladii hadda la unki lahaa in labadii meeloodba inta laga yimaado meel dhexe la isugu yimaado inay hadda inay ku habboon tahay marka oo marxaladan oo timid marka in laga fakaro public private partnership. marka maadaama ay aan la kala maarmaynin, maadaama aan mar meel fog ka nimid haddana meel fogoo kala aadnay, mar ay statekuba inuusan dowladniiba inoo shaqaynayn, hadda maadaama ay dowladnimana inoo shaqaynayso, privatekiina uu xoog leeyahay inoo joogo, in wax la isku darsado oo deedna dalka la hormariyo waa muhiim. intaa waxaa dheer in badan baa lagu soo celceliyey marxalad waxaan maraynaa ee kala guura oo fursado badanna ay jiraan, challenges fara badanna ay jiraan. marka dhinaca dhaqaalaha laga fiiriyo, innaga hadda deyntii dee cuslayd waa laynaga qaaday, waad ogtii waan ku guulaysanay. haddaan deyntii ku guulaysanay oo dhaqaalihii aan dhahnay waan islaaxinay oo dibahaweyn baan ku samaynay, dee waxay noqonaysaa in kaalmadii caalamku inala daba taagnaa inala daba joogay grandkii la dhihi jiray inay iyaduna meesha ka bixi doonto. de waad istaagtay, waad qaan gaartay, waan ku soo waday warka oo istaag oo adugu dee waad 18 sano waad gaartay, guriga iga baxa ayay sheekadu ayay ku dhowdahay. markay meeshaa timaado marka xaggee loo dhaqaaqaya? ma deymo kalaan doonanaay oo dalkii deyn ka gal, haddana deyn ka baxo deyn kala galmay sii noqonaysa, xaggeynu aadaynaa? waa su-aal. waxaynu u baahannahay dowladdu ma ku filan tahay? maya. privateku maya. therefore waa in laisu yimaado oo wax la isla yabyabaa. mid waliba waxbuu ku fiican yahay. marka dalkeennu hadda dibudhis buu u baahan yahay, investment buu u baahan yahay. waxaynu u baahannahay marka in publican iyo privatekeena la walaaleeyo, isu tagaan, la mataaneeyo, ay wax isla yeeshaan. waxaad ogtihiin mar walba privateku waxay ku fiican yihiin, waxaa ka mid a khibrad bay leeyihiin. khibrad fiican ayay leeyihiin markay timaado projectska iyo fulintooda. markay timaado aad bay u fiican yihiin. maalgelintiina way wataano lacag bay haystaan. marka labadaba way ku wanaagsan yihiin. waxaa marka ay fiican marka in dowladdu ay marka iyaduna ay direct garayso oo waxeeda ku darto si loogu jiheeyo maalgelinta privateka waxyaabaha muhiimka ee jidadka iyo buundooyinka iyo waxyaabaha utilitieska loo yaqaano, si loogu jiheeyo waxyaabaha muhiimka productive sectorka xaggiisa si loogu jiheeyo. dowladdu marka inay taas habayso waa laga maarmaan, kana faa'iidaysato khibradda iyo xoolaha privateka inay ka faa'iidaysato. privatekuna inuu ka faa'iidaysto dowladda, inuu ilaaliyo oo protect gareeyo, iyo in shuruucdii iyo wixii ay ku shaqayn lahayd inuu u sameeyo, iyo inuu marmarka qaarkoodba dee mashaariicdii la wada lahaado. ayadana waxaa weeye waa arrin muhiima oo abuuri karta kalsooni fiican. privateku dabcan waxay ku fiican yihiin innovationka iyo technologyga mar walba ayagaa ku fiican. waxyaabahaas markiiba ay involved ku noqdaan projectiga, waxyaabaha ay kusoo siyaadinayaan oo ay dowladda kaga fiican yihiin waxyaabahaasaa ka mid a oo ay keeni karaan. waxay runtii horumarinaysaa in privateku uu publica ku biiro ay wax isla yeeshaan. serviceska la sameynayo ayay tayo u yeelaysaa. services tayo leh ayay noqonaysaa markay labadoodu ay privateka. maxaa jira wax kasta sida privateka marka loo maamulo
waxa waaye mar walba efficiency-ga wax la yiraahdaa ayaa meesha ka muuqanay marka faa'iido noqonaysa marka inay iyadoo public ah ama public-iba qayb ka yahay haddana efficiency-gi uu jiro qayb muhiim ah ka tahay waxa kale oo waxa waaye riskiga iyo in la galo risk private-ku iska cabsi badan yahay sometimes waxa la yiraahdaa raasumaalku waa fulay marka inay dawladdu kula socoto oo wax kula leedahay waxay dhiiri gelinaysaa in private risk qaato ayay dhiiri gelinaysaa geesinimo u yeelaysaa marka wiil yar oo aabihii la socdo ama ayuu ekaanaya marka wiilka yar markuu keligii yahay waxa laga yaabaa inuu cabsid badan yahay laakiin markuu aabihii garab socdo ama walaalkii garab socdo oo isleeyahay waxbuu ka dhicin karaa waa ka geesisan yahay marka kale markuu dawladdiisa wato qitaaca khaaska ama private-ku waxoogaa wuu ka geesisan yahay mararka kale waxay daa'iman kor u qaadaan oo private-ku markuu uu soo galo oo public-ga wax la leeyahay ama ay wada leeyihiin ay partnership-kaasi wuxuu abuuraa oo uu keenayaa isla xisaabtanka iyo transparency-ga ama hufnaanta ayuu kor u qaadayaa oo wax fiican ayay u noqonaysaa jihaynta maalgelinta ayaa saxmaysa saan sheegay oo maxaan ku dhahaa ganacsiga gaarka loo jiheeyo meelihii loo baahnaa waxaa xal loo helaa oo maxaan ku dhahaa ay keenaysaa in xal loo helo mushkilooyinka bulshada ee adag ayaa xal loo helayaa maxaan ku dhahaa waxaa complex societal issueska la yaqaan waxaas waxay keenaysaa in haddii la isla furdaamiyo oo publickii iyo privatekii ay isla furdaamiyaan xalkooda la helaa oo xalkooda waa la helaya isku soo duuduubo waa tajribad aan isleenahay Soomaaliya maadaamay xaggaba u booday oo meelihii kaleba aan soo eegnay haddii aan naharay hadda waxaan joognaa marxaladii aan investmentka waddankeena aan dhisan lahayn private-keenu uu fiican yahay meel fiican marayo dawladdiina hadda ay soo noolaatay soo xoogeysatay oo inay wax qabatan rabto waxay la tahay waa xilligii ugu habboonaa oo waxaa kaloo meesha ku jira dee waddankan haddii waad ogtihiinoo waa loo soo socdaa waa loo imanayaa waa la maalgashanaya dunida marka in private-keenu iyo public-keenu ay isku toosaan oo aan dee private-keena cagta la marin oo aan waxyaabihii advantageska ahay oo dhan aan dee dad kale u duuban keligood inkastoo aan dee open market nahay haddana dee inaan annagana aan protect garayno hantideenna iyo waxaana waa muhiim waa muhiim marka annagu ka xukuumad ahaan sida la sheegay wasiiradu sheegeen dee sharcigii golaha waa marinay baarlamaankana ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa inuu maro oo ka gudbo si uu u dhaqan galo oo looga shaqeeyo nadwadan ama dood cilmiyeedkan ama forumkanna waxaad moodaa inuu waqtigii saxda ah uu ku soo aaday maadaama geedi socodkaasi uu socdo oo aynu isla guurayno oo aynu meel fiican marayno marka anigu waan baarakaynayaa waan u mahadcelinayaa asxaabtii soo diyaarisay mar kale waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ganacsatada si guud iyo private-ka annaga waxaa noo qorshaysan in ay lead gareeyaan dhismaha Soomaaliyada cusub hadda iyo dhaqaalaheedaba waxaan wadnaa transformation program oo NTP-ga waxaan maleynayaa in fara badan waa maqasheen waana meelo badan waa isugu timaadeen wasaaradda qorsheyntu ay hagayso waxaana la nimid initiative ka duwan nidaamkii hore aynu shantii hore ama sanadihii hore 10 sano hadda in after soo isticmaaleen waxaan rabnaa nidaam la jaanqaadi kara aragtidan hadda ay forumkan uu ka duulayo
oo ah in privateku uu lead gareeyo horumarka dalka ayaan ka shaqeynaynaa. waxaan abuurnay laabis, waxaan rabnaa in Soomaalidu isu timaado, in la wada fadhiisto aqoon-yahanada sektarada kala duwan, siyaasiyiinta, bulshada rayidka, ganacsatada ugu horeeyaan, dhammaantood inta la soo imaado. waxaan rabnaa iyadoo sectors loo qaybsan yahay in ay doodaan oo ay maskaxdooda ay shiilaan, oo ay iyadoo tajribada caalamka iyo dawladaha kalena laga faa'iideysanayo, laakiin in ay dhaliyaan nidaam Soomaaliyeed oo dhaqaale, oo bulsho, oo amni, oo dhinac kasta leh, oo annaga nala eg, annaga nagu jimgaraysan, oo annaga aan leenahay, oo annaga nala eg aan u baahannahay, oo kasoo maaxatay aqoon-yahan Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed. inaan laba qof oo shisheeye ah oo consultants intaan keensano inayna deedna de wuxuun inoo madmadoobaynin, laakiin wax ka yimid baahideena iyo contextkeena inaan kasoo dhex baxay oo annaga leenahay inaan ku salayno futurekeena 5 sano soo socota iyo wixii kasii dambeeyaba. taas aan noo qorshaysan, waana wadnaa hadda, oo maxaan ku dhahaa waqti dhowna si xoog leh ayay u bilaabanaysaa. waa daalantihiin, waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin, aad iyo aad u mahadsantihiin. mar kale waxaan idin leeyahay allah barakeeyo forumkan, guul baan idin rajeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. shirkuna waa idin xireen.